aniga ayaa xaajigayga ka dalbaday furiin asagana waxa uu yidhaah waan iska kaa cafiyey intii aan soo nooleen waan ka soo cadhooday guriga hooyaday ayaan imaaday muddo 20 maalin kadib waxaan ogaaday qaladkaygii xaajigaygii markii aan soo wacane waa uu iga farxiyey alla waa qiso xanuun badan waxayna ii sheegaysaa qisadan in marnaba aan lagu fududaan marka lamaanaha ay kala tegayaan ama furiinku u imaanayo waa qiso cajiib ah qisadan ayaa waxa ay ku dhacday nin waxa uu dhahay anigoo uu u socdo shaqada ayay xaajiyadeedu kuleytiga igu dhegtay kadib waxa iga dalbatay in aan furo xaalka ayaa igu cakirmay wax aan sameeyay ayaan aqoon waayey taladu way igu xumaatay xaajiyadeedina aad ayaan u jeclaay oo dunida wax walboo yaalo ayada ayaan ka jeclaay waxay ii ahayd nuurka keliya ee dunidan aan haysto ma aysan jirin qof kale oo ii bedeli karo ayada marka laga soo tago xaaladdu markii ay sidaas maraysay saaxiibtayna ay ku adkaysatay furiin xaaladdeedu waxa ay noqotay mid aad u adag ayuu dhahay qalbigaygu wuu isbeddelay taladuna waa iigu yaraatay meel aan wax ka bilaabo ayaan garawaayey kadib waxaan dhahay warqad ayaan kuu soo qorayaa waxaana ku soo caddaynayaa in aan ku furay waa ay ka fuqaday ninkii maalinkaa shaqadii sidiisii ayuu ku aaday markii uu soo noqday wuxuu u soo qoray warqadda dusheeda waxa uu ku soo qoray ama bashqadda dusheeda ayuu wuxuu ku soo qoray intii aan isla nooleen iyo wax walboo aniga adigana dhex maray cafis ayaad iga tahay adigana waxaan rajaynayaa dhankaada inay cafi doontid laakiin warqadda gudaha uu ku qoray oo bashqadda ku dhex jirta ayaa waxaa ku qornaay cirka iyo dhulka haddii la isku keeno aniga kuma furi doono dunidan oo idil adiga ayaan kuu jeclahay wax walboo yaalane adiga ayaan kaa jeclahay laakiin ereyga warqadda dusheeda uu ku soo qoro ayaa waxay ahayd aniga iyo adiga wax walba oo na soo dhex maray inta aan isla nooleen cafis ayaad iga tahay gabadhii waa ay cadhootay qoraalka bashqadda oo kore ayay akhrisay kadibna waxay aaday gurigii hooyadeed in muddaha markii ay joogto gurigii hooyadeed 20 cisho kadib laakiin ma aysan furin qoraalka ku qornaay bashqadda gudaheeda markaas ayay soo wacday xaajigeedii ayada oo ku lahayd waxaan rabaa in aan rajactun dhahno ama in aan isku soo noqono waayo qaladka aniga ayaa iska leh adigu waad i jeceshahay ma dhici kartaa saaxiibkeed kama waalin aad ayuu u qoslay markaas ayuu dhahay bashqadda warqadda ku qoran ma akhrisay wallaahi waa qiso cajiiba yah saas islaantaa jeceshaa loo sirtaa dadka aqliga leh fahmi karo gabadhii iskama aysan waalin waxay dhahday maya maanan aqrin meel ayaa ku tuuray markaas ayuu dhahay warqadda soo aqri kadibna igu soo warceli gabadhii warqaddii haddii akhrisay waxaa ku qornaay cirka iyo dhulka haddii la isku keeno kuma furi doono waan ku jeclahay weligaana waan ku jeclaan doonaa gabadhii qoraalkaas markay akhrisay aad ayay u dhoolo caddeysay ooyinta ayaana ka soo hartay warqadduna waxaa ku qorneed kuma furi doono wax walboo dunida adiga ayaa iga qaalisan waan ku jeclahay gabadhii waxay la noqotay riyo waxay la noqotay wax aan caadi ahayn muddo kadib waxay dhahday ma waxaa soo noqon doono noolaashii aan isla noolneen maxaaskaadaa hadda ahay ma kaa furneen miya markaas ayuu ninkii dhahay dunidoo idil adigaan kuu jeclahay qisadan waxyaabaha ka baranayna waxa ay ka mid tahay
in weligaa ay allaha furiinka aanan lagu fududaan qofka aad jeceshahay weligaa si fududna aanan looga tegin furiinku wax buu burburiyaa ee wax ma dhiso waxaa waaye ninkan aqliga uu kaashaday ama uu sameeyay haddii aad samaysid wax badan ayaa ka faa'iideysa waxaa idiin soo gudbinayaa anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaan rajeynayaa qisadan inaad wax badan ka faa'iideen adiga daawanay muuqaalkan haddii aad ku xidhantahay barteena YouTube ka soo dhawaa haddii taa markii ugu horeyso soo booqatay sidoo kale saaxiib ka dhigo si muuqaalada halkan u soo gelino mar walba ay ku soo gaaraan saaxiibkaada la jeceshahay wanaaga iyo in qisooyinka wax walba ka faa'iido shar ayaa u dhigi kartaa daawashadaada waa ku mahadsantahay